halkani waa warbaahinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Waxaad nagala socon kartaan barteena Facebook iyo YouTube-ka. Wararka ugu doorka roon ee maanta idiin hayno waxaa ka mid ah hay-adda saadka ee ciidamada difaaca Itoobiya ayaa si guul leh u soo gabagabeeyay marxaladii ugu dambeysay ee dib u eegista waxqabadka sanad maaliyadeedka 2018. ciidamada dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay isla markaana ay taageerto Sacuudi Arabiya ayaa sabtidii subaxnimada sheegay in ay ka jawaabeen weeraro ciidamada Xuutiyiintu ay geysteen. dhanka kale ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay gobolka Ma'rib ee Yemen. khilaaf ka dhex qarxay Spain iyo Talyaaniga sababo la xiriira qulqulka muhaajiriinta awgeeda. wiil uu dhalay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo ka ficil celiyay heshiiskii Turkiga, Pakistan iyo Sacuudi Arabiya. wararkaas ayaan idin soo gaarsiin doonaa si faahfaahsan ilaa dhammaadka warka. inaad nala socotaan ayaanu ku rajo weynahay. ciidanka difaaca Itoobiya ayaa awood u yeesheen in ay badbaadiyaan balaayiin qarashaadka ah ee sarifka lacagaha qalaad, iyagoo dayacatiraya hubka iyo hagaajinta saanadaha ciidanka. hay-adda saadka ee ciidanka difaaca Itoobiya ayaa si guul leh u soo gabagabaysay marxaladii ugu dambeysay ee dib u eegista waxqabadka sanad maaliyadeedka ee 2018, iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da dardargelinta wax abuurka ah. sidoo kale iyadoo la adeegsanayo injineernimada gudaha dalka iyo dib u cusboonaysiinta. tababarka Afrika ayaa sidoo kale furay bog cusub oo loogu talagalay xiriirka militariga iyo u gudbinta tiknoolajiyada, iyadoo lala wadaagayo khibradda saadka ee Itoobiya 40 waddan iyo 27 urur oo caalami ah. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay gobolka Ma'rib ee Yemen, oo ah gobol hodan ku ah shidaalka, kadib markii ay kordheen weerarada ay kooxda Xuutiyiinta ka geysanayso gobolka. ilo militari ah oo laga helayo gudaha Yemen ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in 8 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda lagu dilay, halka 12 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradii ugu dambeysay ee Xuutiyiinta. wasiirka caafimaadka Yemen ayaa sheegay in 2 qof oo rayid ah lagu dilay, 14 kalena lagu dhaawacay duqaymo lagu qaaday xaafadaha la degan yahay iyo xeryaha dadka barakacayaasha ah ee magaalada Ma'rib. Xuutiyiinta ayaa sheegaya in ay bartilmaameedsadeen xero ay leeyihiin ciidamada dowladda Yemen oo ku taala gobolka Ma'rib. weeraradan ayaa dhacay maalin kadib markii weeraro gantaalo ah oo Xuutiyiintu fuliyeen Ma'rib ay dileen ugu yaraan 58 xubnood oo ka tirsan ciidamada dowladda. xabad joojintii la gaaray sanadkii 2022 ee u dhaxeeyay Xuutiyiinta oo Iiraan taageerto iyo dowladda Yemen oo Sacuudi Arabiya taageerto ayaa dhammaatay bishii hore. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee qaabilsan Yemen, Hannes Granberg, ayaa ka dhigay in dalka Yemen uu hadda wajahayo khatar ka weyn sidii hore, oo ah inuu dib ugu qarxo dagaal ballaaran marka loo eego xilligii xabad joojinta la bilaabay Abriil sanadkii 2022. khilaaf ka dhex qarxay Spain iyo Talyaaniga sababo la xiriira qulqulka muhaajiriinta. Spain ayaa tallaabooyin ay ku xakameynayso xuduudeeda ku soo rogtay dhammaan safarada diyaaradaha iyo maraakiibta ee ka imanaya Talyaaniga, iyagoo khilaafkan u dhaxeeyay labada dal ee midowda Yurub uu sii xoogsanayo. tallaabooyinkan ayaa dhaqan galay xalay, waxaana la filayaa in ay socdaan muddo bil ah. waxay yimaadeen toddobaad kadib markii Talyaanigu uu qaaday tallaabooyin la mid ah,
kadib markii ku dhowaad 78,000 muhaajiriin ah oo ka yimid Morocco ay galeen Ceuta oo ah dhul Spain ka tirsan. Jimcihii la soo dhaafay ayaa Spain ka dalbatay Talyaaniga inuu Axadda ka noqdo kontaroolada xuduudaha, hase yeeshee Roma ayaa sheegatay in ay tallaabooyinkaasi ay sii socon doonaan ugu yaraan ilaa 15 Agoost, iyadoo Talyaanigu sheegay in Spain ay filayso mowjad cusub oo muhaajiriin ah in ay gaaraan Ceuta. Xiisadan ayaa isku horkeentay ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sánchez oo ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ah iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni oo ah siyaasad muxaafid ah isla markaana muddo dheer ku baaqaysay in midowda Yurub uu adkeeyo sharciyada socdaalka. wiil uu dhalay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo ka ficil celiyay heshiiskii Turkiga, Bakistan iyo Sacuudiga. Yair Netanyahu oo ah wiilka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bartiisa bulshada ee X ku daabacay su'aalo iska weydiinayo heshiiska difaaca ee ay kala saxiixdeen Bakistan, Sacuudi Carabiya iyo Turkiga. Yair Netanyahu ayaa yiri marka Iiraan Xuutiyiinta ama maleeshiyaadka ku sugan Ciraaq ay weeraraan Sacuudi Carabiya, Turkiga iyo Bakistan, ma weerari doonaan Iiraan, Ciraaq iyo Yemen. Waxa uu sidoo kale isweydiiyey marka xigta ee uu dagaal dhexmaro Hindiya iyo Bakistan, Turkiga iyo Sacuudi Carabiya ma weerari doonaan Hindiya. Jimcihii shalay, Sacuudi Carabiya, Turki iyo Bakistan ayaa magaalada barakaysan ee Makka ee Sacuudi Carabiya ku kala saxiixdeen heshiis difaac ah oo wada jir ah. Sida uu dhigayo heshiiska, weerar lagu qaado mid ka mid ah saddexdan dal waxaa loo aqoonsan doonaa weerar lagu qaaday dhammaan saddexda dal.